qodobka koowaad dhamaystirka dastuurka federaalka ah faahfaahintiisu waxay tahay in heshiis laga gaaro guddiga dib u eegista iyo geedi socodka dhamaystirka dib u eegista dastuurka in la dhamaystiro qodobada farsamo ee ku xusan u dhiman arrimaha dastuurka in heshiis laga gaaro qodobada siyaasiga ah ee lagu muransan yahay sida awoodaha iyo wada shaqaynta heerarka dawladda qaybsiga kheyraadka dalka nidaamka cadaaladda iyo ilaalinta dastuurka waqtiyadu way kala duwan yihiin laakiin 2 sano gudahood ayuu isaga oo dhan ku go'an yahay kaasi marka waa qodobka koowaad qodobka labaad dhamaystirka hanaanka dhismaha ciidanka iyo sugidda amniga dalka in heshiis wadajir ah laga gaaro qaabka loo dhisayo ciidamada qaranka Soomaaliya dib u eegisna lagu sameeyo heshiisyadii hore ee amniga in dib loo qaabeeyo dhismaha ciidamada qaranka qalabeeyo loona diyaariyo in ay la wareegaan mas'uuliyadda amniga qaranka xoreynta iyo in dalka laga saaro kooxaha argagixisada ah kaasina waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa qadiyadda arrimaha Somaliland in dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ay heshiis ka gaaraan hanaanka wada shaqayneed waa hanaanka wada hadalka arrimaha Somaliland in lagu guda galo wada hadallada Somaliland laguna dhamaystiro ilaa bisha August 2022 qodobka afraad maqaamka caasimadda Soomaaliya in hay'adaha dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay heshiis midaysan ka gaaraan maqaamka caasimadda dalka dib u heshiisiinta in dib u habayn lagu sameeyo guddiga dib u heshiisiinta qaranka in la diyaariyo qorshe qaran oo dib u heshiisiineed iyo in la hirgeliyo barnaamijkaas qaran ee la diyaarin doono insha Allah qodobka lixaad deeqaha iyo deyn cafinta in laga heshiiyo qaybsiga deeqaha iyo tubta deyn cafinta Soomaaliya 7 hirgelinta doorashada hal qof iyo hal cod in dib loo eego heshiisna laga gaaro dhammaan shuruucda guddiyada iyo siyaasadaha hirgelinta doorashada qof iyo cod in la dhamaystiro geedi socodka qabsoomidda doorashada xisbiyada tirakoobka xuduudeynta dhaqaalaha iyo agabka hawshaasna waa in lagu qabtaa ugu dambeyn 2023 warmurtiyeedkan waxaa saxiixay رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلة مدحوينها بنتلاند مدن السعيد عبد الله الدني مدحوينها جبلان مدن أحمد شيخ محمد إسلام مدحوينها كوفور قلبيد مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقران مدحوينها قلمدوق مدن أحمد عبد كاري غورغور مدحوينها هرشبيل مدن علي عبد الله حسين قودلاوي يقدوميها قبل كبنادر أهل دوغة مقالة مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فنش وما تنتهي